Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, dear students. This is another lesson, and today we're going to do page 97. So it's the last part of the entire of the very long chapter. Marka inta ugu dambeysay weeye labada page ugu dambeeyay weeye waxaana weeye side by side gazette marka buugga journal buu leeyahay jarayd buu leeyahay journalka waa labada page ugu dambeeya cutub walba wuxuu dhan soo dhiganay. So side by side gazette aan dul marra marka side by side gazette marka jaraydkan muxuu leeyahay muxuu ka hadlayaa maanta volume 1 waa volume 1 number 4 language waa luqada. Millions speak Chinese only hundreds speak Bahinemo. Millions speak Chinese malaayiin ayaa ku hadasha luqada Chinese-ka. Only hundreds speak Bahinemo boqolaal baa ku hadasha luqadan la yiraahdo Bahinemo. There are over 20,000 languages in the world. Dunida waxaa ka jira 20,000 luqadood ayaa ka jira. Some of these languages are very common, and qayb luqadahan kamid ah kuwa kamid ah are very common waa kuwa aad maxaa ku raadayay common caana common waxa weeye wax meel walba yaala weeye ana meel walba ku arkaysaa weeye common. So if something is common, it's everywhere. For example, tusaale, millions of people speak Chinese. Speak waa ku hadlid waxaan soo dhiganay. For example, waxa weeye tusaale, millions of people malaayiin dad ah speak Chinese ayaa ku hadla luqada Chinese-ka. Spanish luqada Spanish-ka, English, Arabic luqada Carabiga, Portuguese luqada Portuguese-ka, and Japanese. On the other hand waxa loo isticmaalaa marka la doonayo in la sheego wixii hore wax ka duwan ama ka soo horjeeda. On the other hand, some languages are very rare. xaga luqadaha jira very common oo maxaan ku raadayay meel walba caana meel walba aad ka helayso wadan walba aad ka helaysaa luqadahan. Laakiin waxa arrinka ka soo horjeeda qaar baa very rare waa naadir waa hal iyo dhif kuwa aanad arkinba wadamo badan baa laga tagto luqado qaar aanad arkin waa rare. Some languages are very rare. For example, tusaale, only 500 people in Papua New Guinea, wadankan Papua New Guinea la yiraahdo 500 qof kaliya speak the language Bahinemo ayaa ku hadla luqada la yiraahdo Bahinemo. So some languages are very common, others are very rare. They're very rare. So if I ask you a question, is your language rare or common? Languages grow and change. Luqaduhu way koraan and change wayna isbedelaan. They borrow words from other languages. They borrow waa amahasho waa amah. They borrow words eraya ay ka soo amaahdaan from other languages luqada kale ay eray ka amaahdaan. For example, tusaale, in the English language luqada Englishka, the word rodeo is from Spanish waxa laga soo qaatay Spanishka. Cave or cafe comes from French waxa laga keenay luqada Faransiiska. Ketchup is from Chinese-ka laga keenay. Sofa is from Arabiga laga keenay. And potato comes from Haitian wadanka Haitian Creole kan waxa laga hadlaa wadanka Haiti ereyga potato xaggaas ka yimid. New words also come from technology. Eraya jira ka yimaada technology-da ka yimaada jira. For example, tusaale, cyberspace iyo website iyo email are recent words that relate to the internet. Kuwan dhan waxay leeyihiin internetka. Fact file waa file waxa laga hadlayaa waxyaabo runa xaqaayiq maxaan ku raadayay dunida ka jira. Common languages luqadaha ku badan adduunka. Common languages. Mandarin Chinese waa midabka marka xagga weeye iyagu xagga laga helaa. Spanish waa midabka waxaan laga helaa wadarkiisa. All of this is and then we have English here and we have English there, and Arabic we have Arabic here, all of these countries they speak Arabic. Bengali we have Bengali here. No, it's there, it's tiny. Hindi we have Hindi here. Portuguese we have Portuguese here. Russian we have Russian here. Japanese we have it there, and then German we have German where? We have German somewhere there. Language luqada. Number of speakers inta qof ku hadasha. Mandarin Chinese 885 million inta ku hadasha. Spanish 332 million. English 322 million. Arabic 268 million. Bengali 189 million. Hindi 182 million. Portuguese
170 million. Russian, 170 million. Japanese, 125 million. German, 98 million. These are common languages. Build your vocabulary. Vocabulary like this. Everyday activities. Maalin walba wax la sameeyo. Every day. Maalin walba. I get up. Waan toosa. Hurdadan ka toosa. Every day. I take a shower. Waan maydhaa. Shower waxa weeye biyaha markay kor ka imanayaan weeye. Xagga sare markay ka imanayaan shower. Bath markaad dhex fadhiisanayso. Like in a bath tub. Every day I take a shower. Every day I brush my teeth. Maalin walba waan cadeeyaa. Every day so this is a comb. I comb my hair. One fitter. Okay, he's combing his hair. Every day I get dressed. Get dressed. Every day I go to school. School kan taga. Every day I go to work. Shaqadan taga. Every day I eat. Every day I take a bath. Okay, bath. I take a bath. Every day I go to bed. So a question, do you like taking a bath? Or do you like taking a shower? I think that's it for the lesson today. So dear students, please make sure you read these lessons and try to note the new words. And so we only have one page to finish the topic, the chapter, I mean. With that, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Till we meet next time. Bye bye.